جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا جد الحسين اللهم صل وسلم وبارك عليه. لكن شيخنا جزاه الله خيرا حقيقة المال تدبر إلا مفكره مغمض كهضوي هذا اعتقاد يوسفي حتى الوايس كأرجع وين يسموك عليكم بس مثلا هذا واحد يكون في عينه ويكون في عيننا ويسوق عليك أنا كان كهضوي بيجي يسوق عليك مركا حقيقة إلهي سبوا قادر أو عباد وحاد ونكسن أيون النشر ذكي حلو كانوا أفكار كهذين عمل كهذين مرة عرفته من دروح اللي نجاها ويا ذكي الله في كراية هذين مال سوتي الرأي بصور والمال موجود أي نقطة اللي الوحي هينا وحكى عربي وكنت يقول البلاد حالي بكرة بهذي وحكيك قاعدة ولا دم سجاد كلها إنه شيء سجاد وانا هنا حكيك قاعدة من قبل رأيتكم بسم الله الرحمن الرحيم سيدا يكون ربنا تهيان سيدا يكون قابلني مربد المحرك تدوك أقول لك من قبل عملت ريد الكتاب حالك قاعد يبان مري وقلا سووا يفتكروا كان عدام القلاه بدون تسوى هذا الكورات دارها deegaanada aan magacaabay deegaan aanan sheegin haddii uu jiro kas ma aha waa ma naqaano deegaan ka tegay haddii uu jiro aanu ka tagnay anigu ma qorino waanu wada qornay aanu ka tagnay haddii jiro hadda laba deegaan baan ku darnay jabuuti waanu ku darnay waqooyigana waanu ku darnay oo dad baa ka yimid wafdi xoog baa ka yimid haddii ay jiraan deegaano aanu ka tagnay beer ma aha deegaan aanu ka tagnay hadduu jiro hala keeno waanu qaabilaynaa waxaa jira arrimaha reerka cumar waxaa la yidhi sayid cumar ibnu khadaab radi allahu canhu yaa markii ay aslamtu lakum diinakum buuroyeedaa la yidhi markaasaa wuxuu markii uu dhamaystirmo wuxuu hoos buu noqdaa intuu wuxuu kor u socdo wuu fiican yahay mar allana markuu meesha ugu sarraysan gaaro maxaa ku dhacaya hoos buu noqonaya marka waa fahmi wanaagsan arrimahan inay kor u socdaan mar walba wax sheegta wax ku dartaa lagu leeyahay waa fahmi wanaagsan oo biidnillahi tacaala kor baynu u soconaa arrinteenu way sii siyaadaysaa kor bay u socotaa iyada oo aanan marka sii daahinaynin hadda haddii ilaahay tobankiiyo barkana waxoogaa birrid baynu leenahayo shaah yar baynu soo cabaynaa dadka ruuxii meel hayaa iyo ruuxii warqad hayaa soo gudbiyo deegaanka gursu in ay naga siiyaan warbixin kooban wadcigooda iyo xaaladooda sida ay tahay dhinac walba siyaasadda dhaqaalaha nabadgelyada horumarka muwaafaqadooda waxaan kaga dayanoo khayr iyo wixii dhibahee jira waxaasoo dhanna waxaan maanta dee yaqsibaana 10 daqiiqa ku siiyey marka bedela meelaha ay soo eegaya waxaan qalay inuu isagu soo keeno السلام عليكم ورحمة الله. deegaanka Gursu waa deegaanka adduunka wadnaa fikir ahaan sidaan qabnaan meelihii ay kasoo kacmay badan ay ugu badnaayeen waayo culimadii iyo waalidiintu markaa u egto meelaha qawiyada
Ahmed waa Soomaaliya waayo dadka wasiirka ugu badan korkooda waxaa samaynaysa waa dadka kamida marka deegaanka Kusum waa deegaan beled ah waa deegaan beled ah deegaanku markuu beled yahayna dadku isma riixi karo laakiin maskaxda la iska gumaysan karaa afar qoys baa ugu xogron reesha cali kabul mar baa kamid ah reer cabdallah kamid ah oo qofkii laysku wada dar dhammaantood waxaa kamid ah reexda qul baa kamid ah reesha ayuub baa kamid ah deegaanku markuu saa yahay dadna dad xeerkii ku milmay ayay noqdeen dadna dad xeerka ku jira oo magacii ku dhegan bay noqdeen marka aan ku ka hadlayno sida dadka reerka ayuub oo kale magacoodu waa yahay waxa la yidhahdaa reeraha sheekhaasha runtii oqaashii ama dadkii hogaamin jiray oo hadda ninka siyaada awoodi ka mid yahay ayaa waxay jirtay sanadkiiba markuu isu yeeri jireen wax rag cumar meelaha jooga si ay isu ogaadaan wax kala yeerayso badan si ay isu ogaadaan ayuu isugu yeeri jiray dadkaasi waxay kala degan yihiin degmada Kusum gudaheeda waxaa intaa dheer dad reer wasiyaada oo fara badan oo reesha Ismaaciil ka mid yihiin oo reesha Jaamac ka mid yihiin oo qolada kale ee diina Cabdalla ka mid yahay oo iyaguna laga galbeeday ayaa jira waxaa kaloo aan daba dhaafay anaga laftiganaga dad muxuu ahaa reesha Axmeda oo weliba reesha Cali Axmeda oo badan baa waxay ku nool yihiin halkaa diina Cabdalla diina Cabdalla ka sokaysa oo la yidhaahdo Gola Garbi Hariiro meesha la yidhaahdo maxay ahayd gubadley meesha la yidhaahdo maxay ahayd dowlad iyadana gabadha dad badan baa ku nool marka dhibaatooyinka ka jira meeshaas dadkaasi dad isku xiran waa dhibaatada koowaad dad marku isku xiran dhibaato ka baxda dadkaasi dad isku xiran maaha waa dad waan isoo gudiyay wax la yidhaahda isku dhaafa dhibaatada meesha ka jirta annagu dhibaatada ugu badan naqanaa waxaan ku noolahay meel istiraatiijiyada meel dadku wada danaynayaan waxaana ku xiga dadkan kale magaranaysaa magacale ama inbaa dhexdegenayneen ama xagga kalena geri baa nagaga xiga dadka muxuu ahaa waxay isoo laamiya maadaama deganahay laamigaa in dagaal qabow loogu baxsado ayaa la isku dayay reero cabdallah kamid ah reero cabdallah kamid ah Kusum wuxuu kala baxaa toddobadii mid ka mid waa reer ayuub oo isagu madax bannaan xoog qabalayadooda oranay dhacay baa lagu yiri waxaa soo haray laba qabalay oo dhankana oo midba wax dala leeyahay sidaa darteed labadii waagi oo ay xuquuqda ku heli jireen waa laga guuray qaybta Soomaalida taasaas baa weli imika arrintan weli xal baan ku daynaa la leeyahay welina ma soo tegin reesha cali oo kale imika maxkamadda iyo waxaan ku doonayna xeer ilaalinta maxkamadda gobolka la geeyay laakiin xeer ilaalintii degmada way joogtaa saddex ka midana annaga ayaa haysana oo gudaha gudoomiye ku-xigeenka ku kamid yahay welina saddex kale iyo qola loo balan qaaday hawshiina waan kusugnaa laakiin arrinta ugu muhiimsanay dad waa dad aydan beerihiina kala leedihiin dhulkiina kala leedihiin waxaad isugu timaadaan xukun yahay dadna waa dad hadda boolisi siyaasadeed wata oo ballaarinaya soona degaya waxaa kamid a meesha iyada oo ka hooseysa bambaas oo reer anagu maxaan isku macnahay uu jiro oo niman isa la yidhaha degan yihiin cabdiqani waan isugu nimi berigii wax badan buu isku dayay meesha niman reesha salaanaale halkaas inteeda badan dhulka la tegay in badan buu isku dayay inuu ka hawlgala cabdiqani aniga isaga iyo qofkaba baa isku dayay ilaahay meesha uu gudiyo waa laga tegay inuu tegay ahaan mooyaane ku ashaqaasheed iyagoo ayna ahayn soo guuraan xagga qabtaay waraysiga kubajoogto raggiina maalka oo halka waanadaynaa saabuiseen inta loo soo soconayo istiraatiijiyad intay taageen etoobiya waxay ku haysataa waa laamiga laamiga weeyaan kulay ciilka ay laamiga sida waxay waqti si u ganacsiyahay inaad garataan
maamo xasiya markii uu leeyahay iyo waqtigii waraaqda ma xabsiga ku jiray sariiraha jira jeelka lagu fadhiisto rag baa sariirtii ka soo dhowday ya oo dawaan reefta صلاة الله سلام الله عليك يا رسول الله صلاة الله سلام الله عليك يا رسول الله سلام الله